بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم howlgalladii dalka ka socday gaar ahaan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug wali sidii bay u socdaan howlgalka marka uu socdo macnaheedu ma aha inta la boodo magaalo la qabanayo waxa la rabaa deegaanka in laga sifeeyo cadawga uu ku jiro gaar ahaan dhulka kaymalayda ah dhulka beeralayda ah dhulka geedgaabta ah tuulooyinka beelaha iyo meel kasta oo lagu dhuuman karo saas darteed howlgalku wuxuu u socdaa si qurux badan oo wanaagsan oo laga dhameystirayo laga dhameynayo dhammaan deegaanadii la maray cadawgu inuusan gadaal kaga imaan ama uusan gadaal kaga jirin markaan soo qaadano howlgalkii gobolka Shabeellada Dhexe magaalada masaajid Cali Guduud iyo magaalada Aadan Yabaal oo labadaba ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxa u dhaxaysa 100 kiiloomitir 100kaas kiiloomitir waxa u dhaxaysa tuulooyin badan dhul kayma ah oo qiyaastii lagu qiyaasay ilaa 20 kiiloomitir oo isku weer dhan kasta ah dhul beereed iyo deegaano xooluhu ay daaqaan oo dhirleeya oo cadawga uu ku dhuunto ayagana cadawga aan la dagaalamayna dhaqankooda waxa ah si ciidamadu baabuurta gaadiidka inta u fuulaan u dhaafaan dhulkaas inay ku dhuuntaan dabadeedna halka hadhow dhibaato gadaal ka geystaan xagga dama ama ciidanka u geystaan ama shacabka u geystaan howlgalladii maalmahan socday ciidanku wuxuu saaka la wareegay magaalada la yiraahdo Guulane waa magaalo weyn oo hadda u dhiganta inay degmo noqoto laakiin waqti hore aan degmo ahayn dadkuna aad u degan yahay waxa kale cadawga laga saaray harka dheere oo ayadana atuulo isla deegaanka Guulane ku taala iyo Daarasalaam oo ayadana ah tuulo deegaanka Guulane ayadana ku taala ciidanku uu siqayaa si taxaddar leh si waafaqsan tabta dagaalka ciidamada si waafaqsan istaraatiijiyada dhulka iyo isticmaalka topografiyada iyo hawshiisa u wataa wuxuuna insha Allah mardhow ku guuleysan doonaa in aan tagno degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle dabadeedna aan waajibaadkayada labaad saddexaad iyo labaad ka bacdi u gudubno insha Allah taala hadda maanta intaas aanu ku soo wargelinay waa guul wanaagsan